Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan. Ku soo dhawaada barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Media TV. Kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono boqorkii basaaska ahaa ee 1 milyan oo dollar bishii ka qaadan jiray hay-adda sirdoonka Mareykanka marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano CIA-da. American military aid went to the government. The CIA money went to King Hussein personally. boqor Xuseen bin Talaal bin Cabdullaahi bin Xuseen bin Cali oo loogu yeeri jiray boqor Xuseenkii dalka Jordan oo waddankaasi ka talinayay bishii Agoosto 11keedii sanadkii 1952 ilaa bishii February 7deedii 1999 oo markii dambe geeriyooday ayaa noqday basaaskii ugu caansanaa uguna halista badnaa ee bariga dhexe uga shaqeynayay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA. wargeyska caanka ah ee Washington Post ayaa markii ugu horeysay daabacay bishii February 18keedii sanadkii 1977 wuxuuna ciwaan uga dhigay CIA-da oo siisay lacago malaayiin dollar boqorka Jordan. agaasimaha wargeyska Washington Post ayaa markii dambe isaguna soo bandhigay xusuus qorkiisa basaasnimada boqorka. suxufiga iyo qoraaga caanka ah ee Masar Maxamed Xuseen Al-Haykal oo ahaa agaasimaha wargeyska Al-Haram ee Masar marna noqday wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa isaguna ku qoray buuggiisa cusub ee lagu magacaabo dhawaqa siyaasadda inuu boqorku ahaa basaas uga shaqeynayay CIA-da iyo Yuhuudda bariga dhexe. boqor Xuseen ayaa bilaabay basaasnimada sanadkii 1957 waxaana sidaasi cadeeyay suxufiga weyn Bob Ward oo ah wariyihii fashilay ceebtii iyo fadeexadii Watergate ee ku dhacday madaxweynihii dalka Mareykanka ee Richard Nixon oo isku casilay fadeexad darteed. haddaba inta badan waxaa dhagahaaga ku soo dhacay fadeexadii caanbaxday ee Watergate. haddaba sidee ku dhacday, maxay ku saabsaneed, xagee ka dhacday, goorma ayay dhacday, yaa ku lug lahaa, maxay ku dhammaatay? intaasoo idil waxaan idinkaga soo diyaarin doonaa barnaamij gaar ah, waxaana kala socon kartaan barta YouTube-ka aan ku leeyahay. sidoo kale wariyahaas ayaa waxa uu sheegay in boqorka uu u gudbiyey hay-adda sirdoonka Mossad ee Yuhuudda diyaar garowgii dalka Masar ee ka tallaabistii kanaalka Suez dagaalkii 1973. boqorka ayay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-du bil kasta waxa ay sii jirtay 1 milyan oo dollar, iyadoo markii dambe uu lacagtaasi wax yar ka dhimay. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Jimmy Carter magaca hay-adda sirdoonka dalka Mareykanka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano CIA-da ee boqorku uga howlgeli jiray ayaa ahaa Master Beef, magacaasi oo ku jira 10ka basaas ee ugu caansan hay-adda sirdoonka Mareykanka. qodobkeena labaadna waxa aan ku soo qaadanaynaa basaas u dhashay dalka Ruushka oo kashifay siro badan. basaaskan ayaa waxaa lagu magacaabaa Yuri. waxa uu sanadkii 1939 ku dhashay dalka Ruushka. markii uu ahaa 17 sano jir ayuu waxbarasho u galay macadka luqadda ee Institute of Oriental oo ka tirsanaa jaamacadda dowladda ee Moscow oo si toos ah ay u maamuli jireen hay-adda sirdoonka dalka Ruushka ee KGB. luqadaha ka sokow waxa kale uu bartay taariikhda iyo dhaqamada maadaama ay qasab ku ahayd ardayga Ruushka in ay qaataan tababar ciidan. si fiican ayuu waqtigaasi uga faa'iideystay. waxa uuna bartay maadada xeeladaha dagaalka iyo maado kale oo ah habka maxaabiista dagaalka su'aalo loo weydiiyo. sanadkii 1965 ayaa hay-adda sirdoonka Ruushka ee KGB shaqaaleysiisay. waxa uuna madax ka ahaa waaxda cilmi baarista iyo la dagaalanka dacaayadaha. Master Yuri oo dalacaado badan ka helay KGB haddana waxa uu iskaga baxsaday sanadkii 1970 isagoo iska dhiibay safaaradda Mareykanka oo ku lahaa dalka Greega. Yuri oo markii dambe la magac baxay Thomas waxa uu noqday raggii ugu caansanaa mowduuca ideological subversion ama burburinta maanka ama fikirka. waxa uuna qoray buug lagu magacaabo khiyaanadu waxa ay ahayd shaqadeydii. waxa uuna ku waramayaa sida dowladaha loo burburiyo iyadoo aan dagaal lagu qaadin, taasi oo ah in akhlaaqda iyo dhaqanka bulshada lagu burburiyo ugu badnaan 20 sano oo ah inta hal fac uu ka soo korayo, kuwaasi oo xambaaraya dhaqanka la gashtay ee burburinta ah gaar ahaan dhalinyarada. waxa uu sheegay in arrimahaas uga fiican ay yihiin iyaga oo laga niyad jabiyo warar been ah oo ku saabsan arrimahooda, waxaana aaminsanaa in beentu ay niyad jab ka abuurto. Master Yuri waxa uu cadeeyay in ay nacasnimo tahay in waqtigan aad dagaal ku qaado
dal adigoo si fudud u burburin kara iyagoo aan ku arkayn in aad cadow u tahay oo saaxiibkooda kaa dhiganaya. Guud ahaan marka aad eegto hadalka ninkani waxaa kuu muuqanaysa in dagaalkaas qarsoonaa uu ku socday dalkeena hooyo ee Soomaaliya muddadaas dheer, gaar ahaan inta burburka lagu jiray, iyada oo ummadeena lagala dagaalamayo diin ahaan, dhaqan ahaan iyo weliba akhlaaq ahaan. Waa wax muuqda oo maanta la arkayo. Haddaba waa muhiim in dadkeenu, gaar ahaan culimada iyo indhargaradku, ay ku baraarugaan xaaladahan khatarta ku ah diinteenna, dalkeenna iyo dadkeenna, laguna dadaalo sidii looga hortagi lahaa. Adiga haddana daawanaya, waxaa mas'uuliyad kaa saaran tahay in aad sii shargarayso xogtan. Haddii alle uu raalli ka noqdo, mawduuceena xiga waxa uu noqonayaa burburkii dowladda Syria iyo dowladaha ka dambeeya. Waxa uuna noqonayaa mid taxane ah, waxaanu ku soo koobi doonaa 3 qayb. Adiga se daawade, maxaad jeceshahay inaan idiin soo gudbino? Waxaa kaloo jira barnaamij habeen walba ka baxa janalkeena, kaasi oo lagu magacaabo dhacdooyinka maanta. daawade waxaan kaa codsanayaa, haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube-ka, in aad muuqaalka like garayso, subscribe-na aad noo saarto. waxaana barnaamijkan idinla socodsiinayay anigoo ah Burhaan Cali, waxaanad ka daawanayseen Burhaan Media TV. barnaamijka xiga inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.